asalaamu calaykum magacayga waxaa la yidhaahdaa deeqa aadan waxaan u shaqeeyaa welshare international waxaan ahay community health worker maanta waxaan idinkala hadli doonaa cudurka la yidhaahdo sokorowga iyo dhibaatooyinka uu leeyahay cudurka sokorowga la yidhaahdo waa chronic disease ama chronic waa cudur aan qofka ka tegaynin oo jirkiisa ku jiraya inta lifekiisa ka hartay macnaheedana waxa weeye qofku markuu sokorta qabo jirkiisa dhiiggiisa ayaa waxaa ku jirta sokor badan taasoo u keenaysa dhibaatooyin badan ama cudurro badan oo qofkii ka baxaynin marka aan ka hadalno waddankan aan joogno ama statekan Minnesota dadka ku nool Soomaalida waxay ku badan tahay waxaa ku dhacda cudurkan 3 goor inta ka badan dadka waddanka degan markay ku dhacdana 37% oo dadkaas ma helaan caafimaadkii ay rabeen iyo taxadarkiisa uga taxadari lahaayeen cudurkaneyti waana arrin saaid u dhib badan maanta toolo waxaa jira family idinla share garayn doona ama idinla qaybsan doona cudurka ku dhacday sokorowga iyo siday dhibaatooyinka ay ka soo mareen ila daawada aabba waxa uu ahaa qof aad iyo aad u shaqo badan marka guriga uu joogo aad buu u shaqayn jiray caruurta aad buu ula ciyaari jiray waxa uu ahaa qof qoys jecel wax balwad ah muu lahayn waxa uu ahaa ashqaasta dadku aadka iyo aadka u jecel yihiin marka uu bulshada joogo marka uu masaajidka joogo marka uu asxaabtiisa iyo qoyskiisa ku dhex jiro waxa uu ahaa qof aad iyo aad u kalgacal iyo maxabo badan sanadku markuu ahaa 1991 baan Djibouti tagay Djibouti markii aan tagay waxaan isku arkay waxyaabo aan caadi ahayn oo fara badan oo ka mid tahay gaajo haraad daal warwar kaadidii oo xajin kari waayay wax badan baan isku arkay dalkayga baan dib ugu noqday dabeedna dhakhtar baan doonay waan isbaaray waxa la igu sheegay inaan qabo macaankii la igu sheegay aqoon ma lahayn dadkaygu ma aqoonin saan wax dhawaan garan waayay shaki fara badan baa igu dhacay waxba kama aanan garanaynin xanuunka macaanka xaafaddu waxba kama garanayn xataa dhakhtarkii uu soo sheegay inuu macaan qabo muu soo siinin wax uu raaco iyo meel uu ka barto macaanka kaliya waxa uu ku soo wargeliyay in xanuunka macaanku uu haleelay aabbo waxay cunayeen baan la cunay waxay cabayeen waan la cabay wax yar oo aan waxba taraynin baan markaa iska ilaaliyay markaa ka bacdigeeda waxaan ku tirigaa waxaan maartay goostay inaan beer iibsado beertaasi ayaan iibsaday iyada ayaan iska beertay wax soo saar baan ku sameeyay muddo ayaan ku shaqaysanayay oo dusha ka maamulayay ilaa uu sanadku soo gaaro 2009 markii ay ahayd ayay dhibaato aanan filahayn oo aanan fahmahayn baa ii timi halkaasay dhibaatadu ka bilaabantay nabar baa igu dhacay wuxuu igaga dhacay fartaa lugtaa midigta ayuu igaga dhacay fartaas igaga dhacay markuu fartaa igaga dhacay lugtii way barartay way ka sii dartay markay ka sii dartay waxa lagu sameeyana maanan garanayn dhakhtarkooda waxba kama fahmaynin midna rasaa guriga igu iman jiray markaan arkay lugtoo weynaato dee cirka isla tagtay ayaa waxa dhacday in ma garanaysaa emergency baa ayaa laygu qaaday waxa la geeyey dalka Ethiopia ayaa la geeyey markii Ethiopia la geeyey lugtii waa la eegay waxa la ogaaday lugtii inaanu soo galaynin dhiigu oo ma garanaysaa dhiigu ilaa halkaas soo gaarayo dabeedna waxa lugtii waa lagu jarayaa markaan arkay xaaladii khatarkeedu waxa gooye lugtii waa la gooyay xanuunkaygu aad iyo aad buu u badnaa wax aliyaal wax garashadeedu way yareyd markaa dabadeedna halkii baa lugtii la iga gooyay markii la iga gooyay lugtii la iga gooyay dawooyin la isiiyay ayuu horta xanuunkii infectionkii iga yara joogsaday laakiin waxaan taagdaro ayaa igu bilaabantay miisaankaygu wuxuu dib ugu soo dhacay 45 kiilo buu dib ugu soo dhacay markaasi muddo 3 bilood 4 bilood ayaa laygu hayay maartay ayaan meel laygu hayo laygu daweynayay 4 bilood markaan halkaa joogay ayaan deedna dib u noqday dalkaygii baa dib laygu celiyay beerteydii baan ku noqday anigoo beerteydii jooga ayaa lugtii kalena qodxiiga mudday halkaa santarka ayaa iga mudday markii iga mudday iyana sidii tii hore kale ayay ku noqotay infectionkii bay samaysay xumad bay samaysay xanuun Djibouti airportka markii aan tagay waxba waan kala garan waayay deedna dadkii markay dawladooda fuuleen aanu kaliya haray ayaa lagu soo cararay waa la qaaday dawladdu way diiday waa la igu khasbay because tigirka ay go'an dabeedna baashiba si laygu riday
laakiin anigoo sidii ah ayaa airportka Dubai aan tegey aroortana waxaan ka raacayaa dawlad kale dabeedna halkaasaan dawadiina qaadan kari waayey kaadidii waan iska duwi kari waayey waan isku kaadshayey dabadeedna cid baan la hadlay waa lay ogaaday emergency baa laga dalbaday dhakhtar buu leeyahay airportku emergency baa igu qalay waa dabeedna gaadhigiiba halkii igu yimi waa lay eegay waa la ila yaabay xaaladayda halkan ku socdo dabeedna waxay ahayd fiid bay ahayd saacaddu marka iyada 4 habeenimo ayay waxoogaa qalitaana qayb igu sameeyeen qayb baa laygu sameeyey oo layga gooyey laakiin xanuunkii wuu tegi waayey Dubai baan joogay markaa lugtii labaad baa lay gooyey lugta maalinba in baa la gooyey markaa haddaa la badankeedi leeyahay bahalkan macaanka la yidhahdaa waxa weeyaan waa khatar weeye maalinba meel buu kaa cunayaa markaa kolba in baa layga gooyey muddo ay tahay 5 bilood ilaa 6 bilood ayay kolba ina goynayeen xanuuno kale oo fara badan baa igu soo baxay oo uu ka mid yahay dhiikar uu ka mid yahay beer subag oo uu ka mid yahay kaliya xanuun oo ay ka mid tahay magaranaysaa taag daro oo ay ka mid tahay indhihii aan waxba ka arki waayey oo magaranaysaa waxbaba arki waayey dam in noqdeen wax waliba ay haydhaadh ii ahaayeen markaa haddaa la badankeedi leeyahay xaaladaydu waxay noqotay cirkaasay isku shareertay halkaa markaan marayey ee ay arrinkayga waxba iska bedeli waayeen ayay carruurtaydii joogtay halkaa mid igu yimi halkana qaar baa joogay deedna fiisa la ii dalbaday waxaan joogay magaalada Duluth ee gobolka Minnesota markii la ii soo sheegay in aabbo xaaladiisii cuslaatay dhakhtarka Dubai-na uu ku jiro lugtii labaadna la jaray anna aan ardayhay waxbana aanan haynin ma awoodi karayn inaan helo dhaqaale ku filan inaan aabbahay kaga bixiyo waxa lacagta uu dhakhtarku ku soo dalacay aad baan warwaray ticket baan goostay emergency ah isagii baan u tegey waxaan arkay xaaladda adag ee uu ku sugan yahay aabbo Maraykan markii aan imid sanadku ahaa 2012 bishii afraad ee la ibaadhay si wanaagsan la ibaadhay qayb walba la ibaadhay waxa la yaalo wixii lahayo dhan dibadda soo dhigay waxa lagu bilaabay dawooyin qayb walba goondeedii baa loo daweeyey waan dadaalay wixii wax yeelayay wixii aan waxba yeelahayn baan kala bartay halkaasaan dadaalkayga ka bilaabay dhakhtarkaygana waan la kaashaday iyo dawooyinkii markaa deedna exercise baan sameeyey cuntooyinkii waan wada bedelay cuntooyin waxtar leh baan bilaabay socod baan yara bilaabay markay dhaqaaq baan bilaabay waan yara socday dabadeedna wax badan baa iska kay bedelay araggayga labadii indhood oo lay qalay way soo ladnaadeen kelyahayga kor bay soo yara kaceen wadnihii layidhi xanuunsanayay kor buu soo yara kacay waxaygii way soo wada hagaageen dabadeedna cuntadaydii markii aan si wanaagsan u fahmay si wanaagsan aan maartay hadda waan u karsaday aan cunto waxtar leh cunay waan wanaagsanaaday marxaladdan iminka aan joogo ayaan ku soo gaadhay sidaa dawooyinkiina waan iska yareeyey saasaan maartay haddaa la beenkay halkan aan ku soo gaadhay dee waanan iminka wanaagsanahay aad iyo aad baan sida hore uga wanaagsanahay markii aan go'aansaday inaan barto public health ama caafimaadka bulshada waxaan qaatay tababaro fara badan oo ku saabsan xanuunka macaanka oo aan ka helay jaamacadda Minnesota markii aan tababarada faraha badan leh iyo aqoonta faraha badan leh aan helay ee aan kasbaday waxaan bilaabay sidii aan aabbahay u gaarsiin lahaa aqoonta aan bartay ee xanuunka macaanka ku saabsan xanuunka macaanku waa halis maalinba xubin ka tirsan jirkaaga ayuu qaadaya sida uu aabbahayba u galay intii aanu aqoonta buuxda u helin xanuunka macaanka maalin kaliyihiisuu fadhiisinayey maalin luguhuu ka jarayey maalin beerkaa fadhiisanayey xanuunka macaanku waa halis haddii aanad baranin ama qofka bukaanka ah iyo aanu baranin sida xanuunkan laysaga celiyo runtii dhakhtarna kuma caawin karo anigu aabbahay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay rajo buuxda iyo ididiilo ayaa i gashay markii aan arkay sida wanaagsan iyo macluumaadka ku filan ee uu aabbahay ka helay xanuunka macaanka iyo sida uu naftiisa ugu apply gareeyey iyo sida uu ugu dhaqmay ee uu maanta exercise u samayn karayo ee uu bulshada iyo community-ga u tegi karayo ee uu masaajidka u booqanayo ee uu dadka uga wacyigelinayo ee uu uga digayo halista xanuunka macaanka aad baan ugu faraxsanahay inaan aabbahay sidaa noqdo runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxaanan rajaynayaa in ay ku tusaale qaataan dadka Soomaalidu sida aabbahay oo ay bedelaan diet-kooda
wallaahi qoysku aad iyo aad iyo aad bay ugu farxeen markay arkeen maanta aabbo oo nool ismay lahayn especially hooyaday iyo carruurteedu aabbo inuu dhimanayaa mooyaane ismay lahaynin aabbo nolol kalaa u harsan wax quus bay ka taagnaayeen xaaladiisa markay ay arkeen ee uu Afrika joogay markay maanta arkeen isagiyo America ku nool oo xanuunkii ka soo raysanaya wallaahi aad bay ugu farxeen waa muhiim qof kasta in uu barto sida macaanka loola dhigay haddii aanad haysan aqoon kugu filan oo macaanka ku saabsan ma caawin kartid qof kale kow naftaadii ma caawin kartid qof kale ma caawin kartid qoys ma caawin kartid markaad barato ee aad aqoon buuxda u hesho ayuunbaad aqoontaa u gudbin kartaa qof kale oo macaan ku dhacay ama aad ka dhigi kartaaba prevention si aad uga hortagto dad badan oo macaan ku dhici lahaa bahalka macaanku waa khatar waxa weeyaan haddaanad aqooni uu ku dilaya haddaad taqaanana ood magaranaysaa yacni aad fahmaysana dee waa la macaamilaysaa si wanaagsan baad ula caamilaysaa marka waa saaxiibaysa waxaan awood u yeeshay imika waxaan kala bartay cuntadii oo ii fudaysa inaan macaanka iyo kontaroolo magaranaysaa cuntadii waxtarka lahayd iyo tii waxyeelada lahayd baan kala bartay waxay ii suurtagelisay inaan magaranaysaa inaan masaajkii tago inaan haddaa la badankeeda yahay dukaanka tago wax soo iibsado inaan magaranaysaa suuqa tago inaan community-ka tago inaan dadka wax u sheego inaan exercise sameeyo inaan wixii dilay dadka uga digo oon idhaa waxa saa dilay ka jooga nin duhub ku dhacdo kaaga digin waxaa idhaa ku dumaa la yidhaahdaa markaa sidaasi ayaan magaranaysaa halkaasi marxaladdaasa marayaa dadkana waxaan jeclaan lahaa kuwaan in lahaa inay ka digtoonaada macaanku waa dilaa weeye haddii aanad garanaynin wasalaamu calaykum waraxmat